Weligaa ma akhrisatay khudbaddii ugu dambeysay Saddam Hussein? Taariikhda ayay gashay. Xaakimka ama qaadiga ayaa Saddam Hussein magaciisa weydiiyay, kadib wuxuu Saddam Hussein ku jawaabay, "Dastuurka Ciraaq waan xushmaynayaa, laakiin dastuur uu Bush wax ku daray ma ahan mid aan xushmaynayo. Magacaygu waa macruuf, mana kuu sheegayo." Mase Bush ayaa su'aashan ku soo dhaweeyay, "Xaakim, Islaamku waa dowlad guuraysa. Adiga xaakim waxaad halkan ku fadhisaa fikrad Maraykan ah. Waan is ognahay dhammaanteen," ayuu yiri. Xaakimka oo salaad u diiday Saddam ayaa sidaa yiri, "2 jeer waxaan kuu sheegay in waqtiga salaada casar la joogo, laakiin waad iska indhatirtay sabab," ayuu yiri. "Ka cabsan maayo qofna, xitaa adiga iyo wixii la midka ah. Waxaan kaliya ka cabsanayaa waa Allah Subxaanahu wa Tacaala." Mar uu xaakimka hadalka ku celiyay Saddam Hussein ayuu sidan ugu jawaabay, "Xaakim, aniga maahi arday wax ka dhigta iskuulkaada, laakiin igu xushmay inaan ahay madaxweynahaaga. Waxaan ku tusay dhaawacyada Maraykanka ii geysteen. Weli waad aamin waysan tahay, sababtoo ah Bush-ka xun ayaa kugu yiri." Kelmad walba oo Saddam uu sheego yaan la rumaysan. Kelmado ay weli xasuustaan shacabka Ciraaq. Dadka markhaatiyaasha ah waxay ka dhex hadlayaan qol aan daaqado lahayn. "Micnaha aan ula jeedo waad fahmi kartaa," ayuu yiri. "Da'yarada markay ku qoslayaan geedaha korkooda, libaaxa wax cara ah ma siiyo." Habaarkii Bush iyo Price u jeediyay ayaa ahaa, "Naclatullaahi Bush iyo Price-kii Israa'iil. Waan ognahay in maxkamadan ay korjoogto ka yihiin, laakiin maalin waxaa dhacaysa aad ka shalaayi doontaan. Kitaabkaas gacanta iigu jiro ayaan aaminsanahay, weligeena aaminsanaanaya. Wax geeri ah kama baqayo, laakiin Ciraaq waxaad gacanta u geliseen Yuhuud iyo kufaar," ayuu yiri. "Carab oo dhan waa gumeystayaal kor laga haysto. Arag Sacuudiga, arag Imaaraadka, arag Kuwait iyo maanta Ciraaq," ayuu yiri. "Waxaan ka xumahay anigoo arkaya in dalkayga lagu soo duulayo, in dadkayga ay gacmaha iga xirxireen. Dhageysta shacabka Islaamkow, marnaba ha ogolaanina in dalkiina ay soo farageliyaan Yuhuud iyo reer galbeed," ayuu yiri. "Kuwa daciif ah oo idinka mid ah ayay qalbiga ka xadayaan, kadibna dalkiina ayay la wareegayaan. Waqtigii rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam way jirtay arrintaasi," ayuu yiri. Maxkamadda markay ku dhawaaqday in ugu dambeyn la daldalo madaxweynihii hore ee Ciraaq, ayuu yiri Saddam isagoo aad u qiiraysan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ciraaq way jiraysaa. Saddam geeri kama baqayo. Gaalo ayaad u shaqaynayseen oo dalkiina gacanta u geliseen," ayuu yiri. "Allahu Akbar, Alle i abuurtay ayaan dib ugu noqonayaa. Naclatullaahi Maraykan iyo wixii taageersan. Geeridu waa xaq," ayuu yiri. Saddam waa baxay shacabka Ciraaq kadib isagoo salaad sunno ah tukaday, kadibna kitaabka aayado ka akhristay ayaa la daldalay maalin ciid ah. Alle wuxuu jeediyay khudbad xanuun badan. Allah ha u naxariistay. Saddam Hussein ayuu ahaa madaxweynihii hore ee Ciraaq. Qormadan kooban waxaa soo gudbiyay Bartamaha Media. Codeyntu waa anigoo ah Maxamed Cali Baadiyo. Baahinta waa warbaahinta Jowhar TV. Like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jowhar